cabdulqaadir runtii waxaa mararka qaarkood marka la leeyahay halaabura la sameeyo ama ganacsi dhaqan waxaa jirto haddii hebel dukaan furto in qof kale inuu dukaan furanayo isla dukaanka lagu iibinayo shayga uu iibinayo hebel kaleeto caqabada noocaas iyo ganacsiga noocaas maxaa xal u ah yow horta dhibaatooyinka dadka ugu badan inay wax isku mid ah keenaan dhibaatooyinka naga haysta waxa weeyaan sax kow dadkeenu businesska ma garanaysaa aqoon uma laha ma garanaysaa sax waxa weeyaan maanta hebel baan arkayaa hebel wuxuu furtay uu qarxay anna waxa soo ranaya waxa geli lacagti way qarxasa alla eeganaya qarxasa la eeganaya marka aan horta waxa keenaysa waxa weeyaan way aragnimo la'aan iyo aqoon darro sax labada mid uu midin qofkii ma garanaysaa sax way imka way ognahay tusaale ahaan kala dadka wax isku mid ah furtaa waa dadka ma garanaysaa iska dee business traditional ku reesga jiray dhaqankeenu ha hebel muxuu ma garanaysaa ka faa'iido amba muxuu ka lacagaysan ma garanaysaa ama sameeyst sax marka taa waxa keenaysa waa aqoon darrada iyo waay aragnimada ma garanaysaa see loo gudbi karaa marka waxa loo gudbi karaa waxa weeyaan horta dadkii bal horta wayna eegaan marka koobaad ganacsi marka la sameeyo la iskuma furo sax assessment way lagu sameeyaa suuqa ma garanaysaa la qiimeeyaa suuqa wayna qiimeysaa maxaa suuqa ka banaan maxaa baahiyo ka taagan sax ma garanaysaa sax dee حتى جودهان دلكم حقوق بهاي يعني هذا صالحان قولنا سوودي صالحان كلام مركز جناح فرص هقولون جناح كانوا بحاجة فايدية وصح لكن وين ذاكتها سقلا أنت ترى ضبنا دل كده هين جناح سجاس محوك تريا نقالة دلك محوك تريا تجناح سوي ما بركة كوسو بحيا مركز واحد صور قيمة سمو جناح سوا كوسو بحيا جناح وانا كوجارا بحيا صور عند بريدي وقف كوجار نقنا يا دنا ضبط كسر غين كران وحرف الليالي dhaqaalay dalka way ganacsi weyn maanta marka samayso dadka casuur baa laga qaaday dalkii casuur baa dadna soo gelisay ganacsi naftaadu waad faa'iiday dalkiina waad u faa'iideysay